markay guriga yimaadaan mas'uuliyadda si kale ay u isticmaalaan wixii maaragtay alla faray oo dhan ay ka tagaan ayagoo diinta u isticmaalayaan ama warkan ka maqsuudi la murugadan qabe hooyoy macaan muuqaagu iga maydhila dhibtan soo mare hooyoy macaan intan ka maqnahay waan mahagane manfaciya hurdada wayska maanace hooyoy macaan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waa walaashiin ayaan luul oo idinla asxaab janalka ku xiran soo dhawaada ramadaan mubaarak. waxaan idin leeyahay soo dhawaada meel walba aad joogtaan waa idin salaamayaa. waa walaashiin oo marmar le soo dhacdo. waxaan idin leeyahay ramadaan mubaarak insha Allah meel kasta aad dunida daafeeda ka joogtaan asxaabta janalka ku xiran dhamaantiin waa idin salaamayaa. waxaan idinka mahad celinayaa sida quruxda badan ah kumentiyada quruxda badan igu soo qortaan ducooyinkiina maasha Allah dhiirigelintiina kulli waa idinkaga mahad celinayaa. waxaan idin leeyahay insha Allah dadka igu cusubna waa idin soo dhaweynayaa. dadkii hore ila sii joogeen waxaan idin leeyahay kun iyo kow jeer waa mahadsantihiin. waxa wax lagu yahay waa idinka insha Allah iyo dhiirigelintiina iyo amaantiina maasha Allah wax u dhiga malahan. waxaa tiin dad agteeda aad ugu weyn waan idinkaga mahad celinayaa. waan iga mudantiin inaan idin mahad celiyo mar walba aan channelka soo fariisto. dadka igu cusubna waxaan idin leeyahay soo dhawaada. subscribe gambaleelkana furta subscribe garee gambaleelkana furta barnaamijyada noo share gareeya. waxaa dhinaca like-ta ka jiiftiin like insha Allah like badan hala saaro videoyaasha haduu ilaa yiraahdo. dadkii hore ila sii joogin waxaan idin leeyahay commentiga iyo share-ka iyo like-ta idinkan insha Allah kala baqiilina channelka saa marka hore ugu sii wadeen hore u sii wada insha Allah haduu ilaa yiraahdo. maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo waa ogtiin walaashiin channelkeeda dhiirigelin ugu shaqeeyaa inaan dhalinyarada dhiirigeliyo waxyaalaha burburka qoyska iga haboon. anyway dhiirigelin waa maaragtay barnaamijyada aan soo sii daay waxay u badan yihiin dhiirigelinta waxyaalaha siyaasadda ama dadka inay isqa qabsadaan ka hadlana miihi mana jeclin aan ka hadlo. marka waxaan insha Allah rabaa wuxuu ilaa iiga toosiyo fariin lii soo gudbiyey uu ii soo gudbiyey wiil dhalinyaro oo aroosanayo. marka ugu horeysa waxaan ku leeyahay Cabdiraxmaan gurigaada Ilaahay ku barakeeyo. guri cusub aad galaysaa maxaa la gurigaada Allah ku barakeeyo. gabadha gabar khayr qabta Ilaahay kaaga dhigo adna wiil khayr qaba Ilaahay maaragtay ku isku waara oo ubad khayr qaba kala helo labadiina Ilaahay idinka dhigo. ugu horeyn wiil wuxuu soo weydiiyay Cabdiraxmaan waa wiil yar oo dhalinyaro oo guursanaya insha Allah maaragtay wiigan soo socdo. maadaama aan wuxuu dhahay habrayaan luul channelkaadan ku xiranahay barnaamijyada guriga ku saabsan ee dhiirigelinta aad maaragtay gabdhaha Soomaaliyeed si aan dhageysto waxaan jeclahay inaa maaragtay wiilashana qaybtii kaaga aadan inaa maaragtay aan noo sheegtid siiba aniga gaar ahaan wuxuu yiri waxaan ahay wiil aroosanayo waxaan jeclahay inaa ogaado waxyaalaha maaragtay aad isdhihi kartid markaa guriga aad tagtid waxyaalahaas lagaaga baahan yahay maaragtay inaad ku dhaqanto waxyaalahaas iska reeb maxaa iska daa'idii lahayd muhiimada waxaa maxaan ifari lahayd labadaas insha Allah uu rabaa inuu ogaado. marka waxaan dhahay si guud ahaan insha Allah barnaamij uga soo hadli doona waana dhageysan doontaa insha Allah haduu Ilaahay yiraahdo. kaligeena ma walaalaha ku xiran channelkayga fikradaha quruxda badan ay soo gudbisaan idinkana wixii fikradaha haysaan u soo gudbiya gurigaas cusubna u soo duceeya insha Allah inuu maaragtay ku isku waaro wad khayr qabo uu kala helo Cabdiraxmaan iyo soo jadiisa. ugu horeyn waxaan ku leeyahay ma jeclo gabdhaha ninka beenta badan ha noqonin wiil been badan oo xaaskiisa been u sheego. noloshaada dhabta ah waa inaad u sheegto xaaskaada mar walbana sida aad noloshaada marka guriga cusub yahay aad ku bilowdo ay mar walba ku soconaysaa. waxay noloshaada dhabta ah iyo waxaad maaragtay dabeecadaada dhabta ah inta hore oo dhan wax maaragtay waxay tahay nolosha qiyaali nolosha dhabta hadda idin bilaabanaysaa marka guriga la tago. waxa waay ugu horeyn number 1 beenta ma jecla gabdhaha ninka beenta badan ama wax qariya ama laalaabka badan gabdhaha ma jeclo. taas waa iska ilaalinaysaa oo hatta hadii aad maaragtay qalad iyo sax
kus bini aadan aan qaladaadku naga dhaca ma qaldamno ma dhahayno sababta taa ma qaldamo waa ilaahay marka qalad iyo saxbo waxay jiro waa inaad sida runta u sheegtid waxay jeceliin gabdhaha in la tashto inaa xaaskaada la tashatid waxay jeceliin gabdhaha in loo naxariisto inaa u naxariisatid waxay jeceliin gabdhaha maaragtay ninka oo amaano dumar hadaan amaanta waa jecelnahay in loo naxariisto waa jecelnahay ragga Soomaaliyeed waxay u maleeyaan dumarka inay fiiriyaan lacag gabdhaha Soomaaliyeed qeyr Ilaahay siiyo waa gabdho aad u adkaysi badan dhaqaale darrada wax walba haday timaado mid iyo dhif mooyaan aad ay guri ugu adkaysi badan yihiin ragga ayaga ayaa ka adkaysi badan haday daacad qofka uu yahay reerkiisa gabadha ayada mar walba ninka ragga ka daacadsan oo ka dulqaad badan marka waxaan ku fari lahaa daacadda inaad ku dhaqantid oo qof daacad noqotid runta u sheegtid oo u naxariisatid oo naagtaada maaragtay aad mar walba maaragtay waxyaalaha wanaaga ay ku sameynayso aad ku amaantid wax qaladana markii aad ku aragtid si yar oo degan maaragtay inaad u sheegtid oo qof maaragtay qaylo badan oo wax walba la soo booda aad noqonin iyo mas'uuliyadda gurigaada oo ka adkaato waxa aad loogu dhaliilaa ragga Soomaaliyeed wayna yihiin mas'uuliyadda markay guriga tagaan laba mid waaye inay maaragtay uu nin wanaagsan uu noqdo way yar tahay rag wanaagsan aad idinku yiri waana ka soo hadli doona videoyaal badan aan ka soo diyaarin doona haduu Ilaahay yiraahdo rag Soomaaliyeed laakiin waxa guriga marka tagtiin waxa u badan tahay inay maaragtay wixii mas'uuliyad oo dhan inaad dusha ka saartaan qofka dumarka ah oo idinka mas'uuliyadii maaragtay sidii loogu talagalay u qaadin marka waxaan ku dhigi lahaa mas'uuliyadda qaybta adiga lagaaga talagalay waa ina qaybtaada la wareegtid gabadha waa ina qof mas'uul adiga ka tahay mas'uul ka tahay marka lagu dhahay waxa uu isticmaal ragga Soomaaliyeed si qaldan mas'uuliyadda qaara uu isticmaal mas'uuliyadda maartay gabadha inay leeyihiin oo kale qof la kulamo soo hadli karo inta qaldan ay ka qaataan run ahaantii qof kulamo soo hadli karo yaa la hadlaysay xagee u socotaa xagee ka timid waa sax in qofka dumar oo guriga ku joogto soo jeedaad meesha aadaysa iyo meesha ka timid bina ogaatid laakiin waxa ka badbadinta ee wanaagsano mas'uuliyadda lagu sheegayo lagu leeyahay qofka dumar mas'uulka ahaana taas ma aha mas'uuliyadda lagu sheegayo waa inay gabadhaada waxay u baahan tahay ogaatid waa ina maaragtay gurigaada iyo reerkaada iyo bilkiisa iyo dhaqaalihiisa ninka warhaya noqotid waana gabadha maaragtay aad isku dhiibin sababtay ragga Soomaaliyeed waxay isku dhiibaan dumarka hadhowdina maaragtay waxa imaatay dhibaatooyin badan waxay noqdaan dad gurigiiba waxaan waxba ahayn ka qadarin badan looga heynin qofka bini aadamka waxa fiican inuu asaga mas'uuliyad haayo oo guriga asaga uu madaxweynaha ka rijaal asaga uu ka u tuso qofka dumar oo guriga u joogto si iyadana ay u aragto qof hoggaankeeda daacad oo hoggaankeeda haayo iyadana ay ku dawafeysho ay u noqoto qof daacad wallahi dumarka Soomaaliyeed haday helaan qof hoggaan daacad oo ayaga daacad oo mas'uuliyadooda sidoo u qaado Ilaahay ugu talagal u qabto way jecel yihiin laakiin dhibaatada jirta waxay tahay ragga markay guriga yimaadaan mas'uuliyadda si kale ay u isticmaalaan wixii maaragtay alla faray oo dhan ay ka tagaan ayagoo diinta u isticmaalayaan ama diinta ku soo gabanayaan ay wax u isticmaalaan si qaldan oo maaragtay qofkii control aflagaado gabadha xagee aaday telefoonka ay qaadi karin halkee mar qof u iimaan karin qof soo salaam karin ehelkeeda laga gooyo waxa soo kale mas'uuliyaddu u arkaan inay tahay ma ahan taas mas'uuliyadda ninka ragga waa ninka gabadhiisa maaragtay ku faano u naxariisto waxay u baahan tahay naftiisa maaragtay nafteedaba ka hormariyo sababtoo waxa mas'uulka ka tahay mar walba inta adiga wax qabsanin waxa mas'uuliyadda ka saaranta waa inaad qabatid sababta ay tahay iyada aakhira ayaa lagu weydiinaya qofkan mas'uulka ka tahay waxyaalahan waa waxyaalo xisaab bari ay kaaga imaan karto inaad ku xisaabtid in xisaab kaaga imaanayso caruurtaada iyo gurigaada iyo mas'uuliyaddan aad qaaday gabadhan markay meherkeeda lagu xiray waxaan waa wax laga xisaabin doono ragga Soomaaliyeedna taas kuma xisaabtamaan gabdhaha way ku ciyaaraan way dayacaan ma fahamtay ma ahan markaan maalmahan oo dhan aan dumarka Soomaaliyeed aan ku dhaganaa ma ahan inaan maaragtay gabdhaha Soomaaliyeed ayaga kaliya aan ka hadlaay videoyaasha gabdhaha aan uga hadlaayna ma aanan dhameyn waan soo dhameyn doonaa raggana waan bilaabi doonaa insha Allah dumarka ayaga ayaan hormariyay
waxaana jeclahay labada dhinacba maaragtay balance inay sinaadaan oo raggana wixii qalad ay leeyihiin aan u sheego gabdhahana wixii qalad oo aniga dumar ahay aan maaragtay inta ugu badan dumarka waxaan ka ogahay waa aniga dumar maadaama ahay inaan kasoo gudbiyo insha Allah si aan wax isku balance garaysan aan u helno marka Cabdiraxmaan waxaan ku leeyahay muhiimada inaa maaragtay gabadha xaaska aad qabtid aad qadarisid aad xishmaysid aad u naxariisatid amaan badan ay dumarka jecelyihiin beenta inaad ka ilaalisid sidoo kale wixii hantiyood leedahay inaad ka qarinin aad u sheegtid maxaan laata xishmada adiga hadaa xishmaysid gabadha waxaan ogaa inay ku xishmeynayso hadaa nin daacad naxaaskiis u aad tahayna inay iyadana daacad ku noqonayso iyo mas'uuliyadda gurigaada oo ka adkaatid inaad gabadhaas mas'uul ka tahay ha u dhiibin xaaskaada mas'uuliyadda insa qaadi karin ha noqon raggan u dhiibanaawooda inay iyaga mas'uul ka noqdaan oo gurigooda loo biiliyo caruurta loo biiliyo wax walba oo guriga gudihiisa ka dhacaya aysan waxba ku ogeyn ee qofta haweenka ayada leh maamulka ee hayso wayna jiraan ragga Soomaaliyeed saas u badan waana ka soo hadli doonaa ha noqon hadaa noqotid nin mas'uuliyadiisa sida loogu talagalay reerka u haayo gurigiisa xaaskiisana u naxariisto una nasteexeeyo wanaag badanna tuso una naxariisto weligiisba maaragtay gabadhaas kuma dhacayaan midda aan ku siinayo waxay tahay tibka aan ku siinayo waxay tahay ninka fariidka ah naagtiisa kama xanaaqdo ninka fariidka ah oo naxariista badan naagtiisa kama dudo ninka fariidka ee naxariista badan naagtiisa ma qiyaanto marka waxaa ogaataa naxariista inay lagama maarmaan tahay u naxariista gabadha u nasteexee wax walba wanaagay ku samaysana uga mahadceli hadaan dumarna waan jecelnahay shaayir hadaan soo karino oon keeno in looga mahadceliyo aad ay u jecelyihiin gabdhaha in loo mahadceliyo ee waliba ragga ay u mahadceliyaan gabadh in odageedina u mahadceliyo wuxuu u qabtay inuu maaragtay dareemo hana qonin rag waxa jira maanta 12 hadaa guriga wax walba ka samaysid iyo hadaa guriga wax walba ka hagaajisid iyo hadii maanta guriga gogol huruuda ee ku xirneed ee markay galabta maaragtay uu yimaado oo guriga gogashi laga wada bedelo gool cadaan ama gool buluug lagu xiray intuu yimid una dareemaynin ma jecla gabdhaha ninka saas oo kale ah ma jecla markay ay la hadlaayeen ninka aan hadalkooda dhageysanin aan qadarin ma jecla gabdhaha ninka murunka badan waxaas oo dhan ma jeclo gabdhaha marka waxaan ku leeyahay noqonin murun badan markay gabadha xaaskaada ay kula hadlayso sax iyo qalad waxa wanaagsan inaad dhageysatid waxay ku qaldan tahay inaad si yar oo maaragtay degan ugu sheegtid qadarinta gabdhaha aad ay u jecelyihiin hadaan weynahay hadaan yarnahay waan jecelnahay in la qadariyo waan jecelnahay in la amaano waan jecelnahay shaqada aan qabano sida ragoo kale maniin in lagu amaano jecelnahay mana iloobaan gabdhaha ninka amaano soo dhaweeyo sharfo u naxariisto ayada iyo familkeedaba maaragtay amaantooda iyo wanaaga reerkooda mar walba sheego gabdhaha saaxiibadeed qadariyo calaamadaasna waa calaamadii rasuulka sallallahu alayhi wasallam oo haweenkiisa kula dhaqmi jiray saaxiibadoodna uu qadarin jiray marka insha Allah waxaan ku leeyahay ugu dambeyntii waa inaad daacad u ahaataa gabadha aad guursatid wax beenana aad u sheegin una naxariisatid una nasteexaysid insha Allah kuwa isku waara ubad qeyr qabo gabdhii wiilalba helo ilaahay idinka dhigo kuwa diintooda iyo dalkooda anfaco ilaahay idinka dhigo qoys dadku ku soo biiray oo dadka iyo dalka iyo diinta anfaco ummad anfacdana ma aragtay dadku ku soo daray ilaahay idinka dhigo ilaahay idinka ma dhigo ma aragtay kuwii lagu guuleysan waayo qoysaan lagu farxin ilaahay idinka ma dhigo waxaan idin leeyahay Ramadaan Kariim Ramadaan Mubaarak insha Allah wa walaashiin oo idin leh السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وركوان كمقصود لا مروقادا قابي هوي معاه موقاهو إيغا مايري لا لبتن سوماري هوي معاه intan ka maqnahay waan mahagane manfaciya hurdada way iska maanaace hooyoy macaan